xiiso badan oo dadku mataqaanaa aad iyo aad isugu hayaan talo waxay noqon doonaa warka la isweydiinayo waxaa halkan la fadhiya saaxiibkay oo ah shacabkii uu sameeyay coronavirus waxaa kaloo la fadhiya ganacsade oo asna mataqaanaa hoggaanka dhaqaalaha ah waxaa kaloo oo na soo booqday maanta oo nagu soo booqday mataqaanaa xaruntanada coronavirus afayaan coronavirus oo wareysan doono oo weydiinayno su'aalo mataqaanaa aad iyo aad u xiiso badan oo dadku mataqaanaa ay aad u rabaan inay mataqaanaa ogaadaan mataqaanaa dadku waxay coronavirus waan weydiinaynaa wuxuu mataqaanaa meesha ka soo baxay iyo meesha ka soo bilowday iyo mataqaanaa alaankan inta ruuxa ku dhaceen iyo sababta mataqaanaa xilligan kusoo bagtay coronavirus in la arko sanadkan mataqaanaa 2019 ilaa 2020 iyo shacabkii uu mataqaanaa sameeyay xagga la fadhiya ganacsatada sidoo kale kusoo dhawaada mataqaanaa barnaamijkan channel Ramal channel kusoo dhawaada marka waxaan ku bilaabayaa ganacsade maxamed cabdullaahi waxaa mataqaanaa waxaa jira adduunkan baha la dhaho coronavirus wuxuu soo baxay sidaan war ku hayno sanadkii 2019 dhammaadkiisii marka ganacsadii waxaa maqalnaa beriyahan wuu saameeyey jidadkii waa xidhmay diyaaradii baa xidhmay waxaa xidhmay mataqaanaa baalkii badii baa xidhantay oo tareenada xidhmay maxaad ka leedahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرتقى السلام يا أصحاب جنم رمالة إذا أنت بوان السلام يا سلام بعد يعني وحملت المصاب قضي on national school and أفيانكا كان مساي كورونا فيروس يوريال يور dadka shacabka uu saameeyay oo dhibaatay أنا وأها guddi suxu saartay dadka uu saameeyay coronavirus iyo dadka danyarta ah uu saameeyay inaan garanaysa aan gacan qabano dhaqaalana aan u ururino ayaan maanta meeshan iskugu nimid okay mataqaanaa coronavirus inuu ganacsataan waxaa shaqeynaa guddi ganacsatada oo isku xilsaaray inaan mataqaanaa dadka coronavirus saameeyay mataqaanaa wax urursan dhaqaalaha kale baa imika hadda urursan oo gacanta ku haysan waa su'aal meesha ku jirta hadda muddo adugu ma garanaysaa 3 bilood ayaan arrinta ku guda jiraa oo ururinayna dhaqaalaha adugu hadda ma garanaysaa dhaqaalahan soo gaaray aan ururinay ilaa ma garanaysaa 3 milyan oo na wali laakiin dadkii aan gaarsiin in hadda faraha ku hayna hadana guddida dhaqaalaha ururinaysa dadka danyarta ee coronavirus saameeyay ka ganacsatahan iniga muxuu ka ganacsatahan iniga saameyn telag uu yeeshay inta dadka dhaqaalaha ururin ilaa dadka danyarta iyo dadka coronavirus uu mataqaanaa saameeyay uu geystay warada baan baad mataqaanaa wax ururinaysan niga ka ganacsataan ganacsigiina wax ma u yeelay ganacsiga mataqaanaa saameyn ma ku yeeshay dhaqaalaha iyo ma garanaysaa ganacsiga waxaa dhankaga midig fadhiya afayeenka coronavirus dadku mataqaanaa hadda waxa laga isweydiinayaan coronavirus shanta qaarood buu kala gudbay waa wax la la'yahay waa ilmo aragtay dadku way leeyahay yihiin laakiin maanta waxaan haynaa soo bili aadan oo caadi oo bilaan u fadhiya marka waa xaaja la yaab leh waa sheeko xiiso leh afayeen ku soo dhow afayeenka coronavirus raalihada waxaa sheegtay inaad tahay afayeen coronavirus dadka mataqaanaa bil aadamku muslim iyo gaalo waa baalkan waa la garan la'yahay mataqaanaa meel alla waa la arki lahayd dil arkay waa iska qaban lahaa daawana ma leh mataqaanaa dawladii waaweynaa meel alla meel ay mataqaanaa ay u doonaan bila yihiin adna waxaa sheegtay inaad tahay afayeen coronavirus kusoo dhow marka koowaad waxaa farxad noo ah maanta inaad naga soo qayb gasho channelkeena marka baa kusoo dhaweynaa marka hore aad iyo aad baad u dhow yihiin haye waxaan ku weydiinayaa coronavirus muxuu yahay marka koowaad coronavirus waa dadkan aad arkaysa nool socda ee arkaysa waa maanta kula fadhiya afayeenkeedu maanta kula fadhiyaba ma la isdhihi karaa waxaan la garan la'yahay adduunka ka cabaday coronavirus oo nool oo bini aadan oo fadhiya la arkin isdhihi karaa aad iyo aad waad arkaysaa maanta Soomaaliya inaad arki fadhido coronavirus okay waxaan rabaa inaad faanaga siiso 2 daqiiqo ku siinaya oo ku hadasho kadib su'aalaha soo laabanayna markiina hore xageed ka soo laabateen xageed ka bilaabateen coronavirus qabiil ma leeyahay hadduu saleeyay inta kala baxaa dad gaar oo Pakistan ma jira bal no 2 daqiiqo ku siinaya okay aad iyo aad baad mahadsantiin maanta waxaan joogaa Ramal channel aniga oo martali aan u ah waxaan u sheegay dadka shacabka inaan ahay afayeenka coronavirus su'aal kasta oo la weydiinayna inaan u sheegayo qabiil buu leeyahay midda kale meeshan ka soo bilaabno waxa la dhahaa magaalada Beijing ee dalka China waxaan soo dhaweeyay madaxweynaha Xi Jinping waxaanu leenahay qabiilo badan oo fara badan okay
madaxweynaha Xi Jinping madaxweynaha China wuxuu marka hore adduunka wargeliyay inuu ka bilowday magaalada Wuhan gobolka Wuhan ka tirsan laakiin hadda gaashaanka ku dhufatay waxaa dhacday Beijing tii caasimadda ahayd ee madaxweynaha uu joogay oo ka soo baxdeen dadku shacabka waxay leeyihiin bahal coronavirus dadka danyarta bas uu beeganhayaa mataqaanaa maxaa ka jira intaas su-aashaas haddaa ka joogto taa waxaan leeyahay dadka shacabkii waa been cid kasta oo aan wax ka afgaran weyno madaxaanu jebinaynaa okay inaan been hayn su-aalo cad baa meesha ku qoran haynaa oo na soo gaadhay ma alaankan ma hayno bahalkan mataqaanaa sanadkii 2019 buu soo baxay ma hayno madaxweyne uu ku dhacay alaankan ma hayno ra-iisul wasaare uu ku dhacay ma hayno wasiiro awood loo ku dhacay ma hayno maxaa shacab ilmo yar 6 bilood dhashay iyo shacab dan yar iyo barakacayaal unbuu ka dhex kacayaa sababta alaanka hal madaxweyne ah 5 qaarad oo sheegay inuu ku dhacay soo marka dana gaar ma lehdina dana gaara inaanan lahayn waxaa ku daliil ah xanuunadii naga horreeyey sida cancer aids iyo weliba xanuunadii kale kasii horreeyey waxaa jiray inay dadka madaxdii ay keliya ay dhoofaan hindiyaan u soconaa ruushaan u soconaa britishaan u soconaa yurubaan u soconaa ay u dhahaan laakiin maanta waxaanu ku karantiilay hal meel baan ku wada karantiilay shacabkii iyo dadkii oo dhan bini aadanka okay waan garanay mataqaanaa hadda wax maxaa inoo qorshaysan istiraatiijiyaha ciidanka iyo weliba meeshay kala fadhiyaan aad bay u kala degan yihiin meelo badan oo cusub baanu rabnaa inaanu tageedka saarno marka caalamka maadaama oo caalamka wadamadii ictiraafka raadinaya sanado dhan aanu annaga 2 bilood nalagu ictiraafay oo nalagu aqoonsaday waxaanu rabnaa inaanu hawada la wasakheeyey ee diyaaradaha iyo duulaan inaanu soo afjarno oo weliba aanu nala aqoonsado si dhab ah haddana waxaan usii soconaa dad baan tageedka sii saaraynaa coronavirus military iyo ciidan qaban kara ma leeyahay xoog wax ku qaban kara ma ilaahay baa qaban kara okay coronavirus magaca coronavirus saada usoo baxdayna cudurkan la arkay inuu yahay cudur mataqaan caabuq ku dhacnay Faranka yaa markiiba coronavirus laga gaaray hay'adda caafimaadka ee WHO marka coronavirus sababtay lagu bixiyay coronavirus ma baqo 2019 soo baxnay okay haye coronavirus marka haddana magac kale la bixiyo la gaaro oo dhaho COVID-19 ama COVID-19 biya magacaasna waa 2019 de 2019 miyaasna bas okay waxaa jira mataqaanaa alaankan mataqaanaa dadkii shacabka ee ku dhacay maxaa mataqaanaa dad baa ka caafimaaday dadna weli kamana caafimaadin carruurta yar yar ku dhacay coronavirus inuu naxariis carruurteed ma naxariisanaysaan carruurteed iska deenaysaan iyo dadka danyartee aan awoodda badan lahayn run ahaantii annaga dadka ilmaha yaryar waxaan ugu dhacnay sida hargabkii hase ahaatee 19 naanaystaas waxay noogu baxday waxaan 19 ka weyn baanu ku dhacnaa oonu kansalnaa okay cudurkan coronavirus adduunka dhan buu ka cabaadiyey mataqaanaa masaajidadii baa la xidhay kanaasadihii baa la xidhay meel kasta oo laisku waanhayay baa la xidhay aroosyadii wax walbaa la joojiyey mataqaanaa haddii la isku imaado iyo haddaan la isku aan indhuhu mataqaanaa sideed uji kartaan dadka ruuxa soo cilo socon maskaga dhici kartaan oo mataqaanaa oo meeshaas ka socda banaanka maadaama la sheegay inaad dabaysha la socotaanba waanu ku dhici karnaa okay marka haddii la isku imaado oo masaajidada dib loo furo oo dugsidii qur-aanka iyo malcaamadihii dib loo furo iyo mataqaanaa kanaasadii dib loo furo wax dhibaato oo sidan ka xoog badan miyaa soo gaadhi dadka iyo dalkaba run ahaantii weriga aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaad ka reebtay oo kale meelihii lagu tumanhayay oo kale inaanu kansalnay meelihii kaniisadaha inaanu kansalnay ha fiirini keliya miyaad masaajidadii aad maxaa loo kansalay oo keliya ha fiirini kaniisadihii meelihii lagu tumanhayay dadkii maqooqada cunahayay iyo daroogada iyo maanaa khamrooyinka cabaya inaanu kansalno aanu ka takhalusnay hase ahaatee waxaa la yidhi dadka macnaha dad xunxun haddii ay dembi sameeyaan dad wanaagsan baa ku dhinta meeshaas dadkan duufaanka qaaday ma ogaya ma aha waa okay waa maamaha Soomaaliyeed bay ahayd oo ay ahayd mataqaanaa dabka uu munaafiqda iyo muslimka ku gubtay taas oo mid jirta balse waxaa inay qumanayd inayna maamaha raacin oo mataqaanaa aad meelaha lagu tunto iyo mataqaanaa meelaha si xun aad adeegstaan inaad mataqaanaa dadka ka gashaan oo dadka meelaha fiicnaad ka gashaan ma ahayn laakiin hadda toog tiriba meel kasta la isku imaado waa la xidhay inagu diin gaar ama amisantiin coronavirus haddaa tiinka konfarsaan mise cudur caadi baa tiin diin baan aaminsanaho dad diin le baan u nahay waatay diintiin anigu diinta islaamka haysanaa diinta islaamka haystaan okay diinta islaamka haysataan taariikhda abid ma dhicin masaajid la xidho taariikhda abid ma dhicin dugsi la xidho taariikhda abid ma dhicin mataqaanaa dad islaam oo mataqaanaa la xayiro oo mataqaanaa cibaadada laga xidho oo mataqaanaa muxaadarooyinka iyo jaamacadaha diiniga la xidho marka soo inima haboonin haddaad diin islaam haysataan inaad gaalada basa ku dhacdaan muslimka aad iska dhiisaan soo inima haboonin oo ruux muslim ku dhicin sida alanka ma lasu dhex marhayo ee laleeyahay mataqaanaa hadda dad waxaa arka Soomaali ah ama dad muslim ah oo labaalka muslimka kuma dhaco Soomaalida kuma dhaco gaalooyinku xasuuqahaya marka run baa la moodahayay
mataqaanaa laakiin taa waxaa gaashaan ku dhufatay marka Soomaaliya dalka Soomaaliya markuu ka bilowday hadda Soomaaliya 2003 ku sii dhow yahay weli 3 ku gaaray laakiin 2400 ku sii maraya markuu Soomaaliya tuu galay oo intaas ruuxna u dhinteen intaas ruuxna u jiifaan markaasay tibeen noqotay meesha ka baxday soo inama qumanaan inay leeyahay fiiriyo mataqaanaa inay walaal nimanka diin islaam haystaan coronavirus in aad islaamka iska diisaan soo inaha booneen guriga markii la dhaqayo alaabta lagu madaayay waa la wada dhaqaab alaabtana kor baa la saaraa dagaal baa socda asxaabta markay dagaalamaysa jihaad salaada masaajidka meen aad jirin jihaadka hortiisa lagu tukan jiray marka anagu dagaal baan noqonnaa okay marka dagaal waxa wadana aan kala reeb lahayn oo mataqaanaa ruux walba ruux soo gaadhay laadka u dhufanayo oo lagu gubanayo saas miyaa jawaabtaadu waan dhaqaynaa nadiifta soo hadhay okay waxaa dadka shacabka waa caban haya hadda waxaa la fadhiya mataqaanaa saaxiibkay oo mataqaanaa dadka shacabka igala jooga oo aad u caban haya su-aaluu sheegaya oo mataqaanaa wuxuu leeyahay dadka dowlad u shaqeeya kuma dhacdo coronavirus waa kan dhinacayga bidix ku fadhiya saaxiibkaasna waxaa jooga ganacsade marka wuxuu yidhi dadkii way dhammaadeen cudurkan coronavirus ganacsadaha ayuu ku dhacaan dadka danyarta allaanka dad dowlad u shaqeeya ma hayno oo ku dhacay maxaad kale maxaad u jawaabsaa run ahaantii hadda waa arrintaan hadda falanqaynay un masaakiinta waxaa dheer oo keliya dadka waan ku wada dhacaynaa oo wada dhaqaynaa meesha hase ahaatee meesha waxaa dheer lacag ay iskaga difaacaan ma haystaan hadda waxaa jira istaraatiiji iyo nidaam ah dad oo macnaha taageerka noo saaran sida madaxda oo kale صح مدح مركز مدح صعب قضية مدح مجرى هذا مدح جارها أو هذا بكسنة سنة مجرى هذه يا كم إذا مركز مدح دون ما دوفر بيه هاي كورونا فايز حل ضل هنين أو هالقارات هنين شنطة قارات بأي شيء أفريقيا آسيا بقى يو متقنع أمريكا وفافي يا سلالة هي مدحوينة أما متقنع الوزارة جارها بكسنة سنة مجرى وهذا ينقش سنة تاسواتو سكرت كأصحابته معناها عن أفيانك واحد أيه mataqaanaa weli maada noo sheegin maxaa laakiin hadda madaxan sii beegsanayna allankan mataqaanaa madaxda beegsanaysa inuu wayna sheegin hay'adda WHO maalin waxay sheegtay cudurkan inuu sii socon karo oo la noolaan karo sida cudurrada jira oo kale HIV iyo mataqaanaa cancer ma runtood baa mise waxba kuma jiraan waa noolaan karo adiga waa ag fadhida maanta waanga okay mataqaanaa waa runta waa saak fadhina maxay hay'adda WHO waxay cudurkan daawo u weynay daawo looma hayo inigu daawo ma leeyahay karaa دواء نلوين كراها هدينا لو استعمال waxay daawadiin maxay tahay markii si shacabka dad badan baa u rafaadsan dad badan baa u jiifa dad badan baa abayashad ku waayay oo awoomoy dad badan baa hooyo ku waayay dad badan baa hantooda ku waayay ganacsadii bad iyo dhul iyo cilmi waa laga xiray adduunka oo dhan waa la kala xiray marka daawadiinu maxay tahay balse dadka shacabka u ogaadaan daawadanadu waxa weeyaan waa macnaha dambi ilaahay oo laga gelin oo diinta islaamka lagu ekaado ilaahay oo lagu xidhnaado daawadiinu وهجاج أنت هسه كوس أفمرينا برنامجكي كورونا فيروس أنكور السنة أفيانك كورونا فيروس أدب ما هتسي هاي أفيانك وحش شجعي إن متقارنا الدين سلام وأمسي هاي متقارنا ضد كقاربينا إن ضد كقارنا إسوامرين ضد كقارنا ألانك نبكسن هايان مركا أفيانك وما هتسي هاي شعب كيو بين عصتنا وسود وين هي وأد لعب وباقي أنت هسه كوس أجوبينا برنامجكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Toi t'es bon qu'à faire la mala, bébé du sale, allo allo allo.